Soomaaliya dhagala ay dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiigiis iyo dhexdeeda u dhiiranay ninba waxa la yidhi nin amiin la yidhaabay islaayin amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay waa la tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدوب يسوق محمد حسوستي آمين سوري هو يدين وحاكو سمعي وكبح marka hore cid walba meeqaamka ayalkan ku fadhido ayaan ku salaamaya waa koobi doona waxa la yidhaahdaa libaax arkaysaay ma godlato waayo dadka cilmi badan iga aqoon badan iga waaya aragsan ayaa wajahadayda fadhiya marka af Soomaaligeeguna waa waxa la yidhaahdaa nin xaafadaha iyagiiba lugta kabuubiyotayo buu yidhi war maxaa ku helay sida jilibka ay wareeray af Soomaaligeegu hadduu wareero ويدون يقرأ لي عن دونتان أنت سواء كفتن موضوع علي دبرنتي وحيويرو كوبن بانكسو دياري وانا سي كوبي دونا هذا هو وقته مدشاني طبعا دقيقين كسو كوبا يارسكو دي دونا ومديني هرومر قادو dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa si caqabada dhalinyarta hor taagan dhalinyarta qura maaha ee bulshada oo dhanba maxay inoo wada hor taagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca buu ahaa موضوع ليدي بي دايرن ام يوز ايج waxay yiraahdeen gaaladu adigu 14 ilaa 15 ilaa 30 daada inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyagu yaqaan laakiin waxa professorkuna uu ka dhawaajay inan yar oo Soomaaliyeed tayadaynu dadka dheernahay oo 5 jira oo 400 oo neef oo ariya raacday oo intay saaw eegto tiraahdo nayshiina hiblaya maqan nacam tayada dadkeena aynu inagu xaqirayno inaynu dadka ka liidanayno aaminsanahay ta horumarinta u baahan waata dadka waaweyn waa iska daayay buu yiri professorku dhalinyarta in focuska la saaro dhalaanka in focuska la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yiri ummadii anaha goorma garoor la anaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay garooraan ummadina goormay horumar gaadha marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa hadaba saddexda in la isu geynin caqabadaha ummadda Soomaaliyeed hor taagan maxay yihiin su'aasha isweydiinta li waa taa kow caqabadaha horumarka hor taagan waxa weey ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira way fiican tahay ummadda Soomaaliyeed way wanaagsan tahay tanay tahay laakiin practically marka aynu istayno laalayaalo run aynu isu sheegnay laba nin baa shuura walada sawdasi kulay Facebook aad ugu dhibteen baydun gelin laba nin baa shuura la wada siiyay nin dhala iyo nin dhaqaba shuura la wada siiyay كأنها قبائل وحو كل إحسادين إن دولهم ميلونا أركين رادي نق لكن وهو قرية وحيد وريا ورباجرة سيد محاجرة سيد ورسان كيغو هايو إيق عنتي دولابا وحن كوضا صومالي ويفي عنت هينا واليلية صباح والبنا وحلي شيغا وران دقايو كفره نعم انترمس ان قول اهان يفعل اهان انه اس اهان horta way ka dardaar taan rabo taynu ku dhanqaynay taan noqoto ta kale waxa jira nacay iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700